maanta aan barnaamij idinku duubayno anigoo joogno magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dhegeystayaal sida aragtay halkan waxaa maanta nala jooga dad aqoon-yahan oo reer Somaliland oo gobolkan degan maanta waxaan rabnaa inaan weydiino su'aalo ku saabsan Somaliland iyo marxaladaha ay marayso siyaasadeeda gudaha iyo dibadda waxaan kaloo su'aal ka weydiin doonaa haddii beedmo arrimaha iyaguna sida mantiqada lafteeda sida Puntland iyo Soomaaliya marka ku soo dhawaada ka hor intaan bilaaban waxaan doonayaa inaan mid idinku gudbino si ay ugu sheegaan Umar ku bilowno bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacayga waxa la yiraahdaa Umar Ahmed Xasan waxaan ka mid ahay dadka odayaasha dhalinyarada yara cuslaadeen ee degan Minnesota marka waad mahadsantahay Said bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Hayb Ahmed Yusuf waxaan ahay afayeenka xisbiga kulmiye ee Minnesota State marka insha Allah waan diyaar baan u nahay su'aalaha السلام عليكم مقعي وحلا يلعب محمد جامع أحمد قبياية وحان كمد هاي بلشوين تسوماليلان تقل مقالة مينيابوليس أنيقو ذاتك أولا رقاقا من لماذا سوماليلان يوضا الشركة هذا بينه برنامج كيني بلعبان هنا داوديال وحاربنا هنا مكور عمر كسولويو أو عم بالويديو عمر تلكي انت مثلا maxaad warka haysaa maanta kala socotaan waxyaabihii inoogu dambeeyay dadka sidaynu la socono arrimahan dhawaanaha dhacayay waxa kamid ah arrintii wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya ee ka dhacay Istanbul ama Turkiga oo runtii aan anigu u haystay inay tahay guul horta la gaaray oo meel wanaagsan martay sida ay u dhacaysay arrintu waayahay intaan taawgelin horta waxaan rabaa adigoo mahadsan inaad nooga warrantid guud ahaan dalku sida uu ku socdo iyo xagga horumarka iyo nabadgelyadeeda iyo ka guud ahaan sidaad u aragtaa mala dhacsan tahay mise waxbaad wali suulaysaa ma sha Allah Said waad mahadsan tahay horta Somaliland asalkeedaba sidii loola soo noqday madax banaanida 18 May 1991 wax wal oo ka samaysmayba waxay ahayd wanaagun sii soconay maalin walba marxaladii timaadaaba marxaladihii kale ee jiray way ka sii fiican yihiin marka Somaliland marna horta wax aad u xumay kama dhacaan oo lala yaabo oo aad soranayso malaha god bay gali sida meelaha kale ee ay Soomaaliya ka mid tahayba dhacday way wanaagsan tahay waana sii socotaa waana sii soconaysaa waana xaqiiq jirta taasi qolo walibana meesha ay kuwii hore joojiyeen bay meel ka sii wanaagsan ka sii wadaan oo haybe aduu soo aragtaa dalku nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa soo marayo aduu sad kula taadiga bismillaahir rahmaanir rahiim runtii anigu waxaan u arkaa Somaliland inay maanta meel wanaagsan marayso marka loo eego mandiqada geeska ama marxaladihii kala duwanaa aynu soo maray meel fiican bay maraysaa haday siyaasadda arrimaha dibadda tahay haday gudaha tahay aad iyo aad bay u wanaagsan tahay waxaan si iftiiminayaa muddadii 3 sanadood iyo bilaha ahayd ee ay dawladdan imika ay joogtay wax qabad badan oo soo kordhay iyadoo ay nabadgelyadu aad iyo aad u wanaagsan tahay haddana waxa weeye wax qabadka ayaa 90% sii laba laabmay marka aad iyo aad bay u wanaagsan tahay marka la isku soo ururiyo waayahay بلان كل شيء مكانه محمد جامع أحمد قبياية هذا أوصل كل مقطع Somaliland حد ما تمارس يو السلام عليكم وسؤال هذا في عن حدي إنه أجنو Somaliland محي قبضتي شعب كده سدود سووا أركان وحويا ومد هذا في عن إلا يسترجع أوكي Somaliland متدير بيسوتش تلبيرات سنوات بيلاتنكا سنة سو جرتي قلبو waxbay soo qabanaysa taamarka laga soo gudbo waxa weeyaan shacabkii xilliga daayirayaala waxa laga hay maanta siiraayo waxa kaaga tagayaa dad iyo dal wada socda dalkii iyo dadkii wada jirka iyo wanaaga iyo sharafta iyo cisiga
usoo gaajooday usoo darxumooday midnimada somalilan siday maanta u arkaan dowladda maanta jirta waa qodob wax ma qaldan yihiin waxse ma la qabtay wax waa qaldan yihiin oo way muuqdaan wax ma la qabtay haa waa la qabtay intay doontaba karaankeedu ha noqoto laakiin mar walba waxaa ka fiican in la ogaado waarhaani guntay ka tolantaaye maxaa isku keen haya waa midnimadaasi ama qolooyinka daafaha jira ha noqoto ama kuwa dhexaba ha noqotee sidii midnimadaa looga wada shaqayn lahaa ayuunbay wanaaguna ku jiraa somalilan dalka xisbiga maanta talada dalka haya waxa ay oo maanta dee nagala jooga haybi waxa ay sheegaan inay wax walba ay okay yihiin wax walba qabteen kordhiyeen mushaharkii iskuuladii maxay ka dhigaan bilaash waxyaaba badan ay sameeyeen mucaaradkuse waxay yidhaahdaan wax badan ayaanay qaban ama wax badan baa khaldan adigu haddaan kugu soo celiyo mar kale ma noo taaban karaysaa meelaha dowladdu ku khaldan tahay ama meelaha u baahan saxitaanka ee muuqanaya mar labaad haddaan ku soo laabto waa su-aal fiican horta qalad ilaahun baan qaldamin baniaadamku waa qaldama in qaladka la sheegayaa ma mid waddanka lagu burburinayaa mise waa mid la leeyahay wanaag ka sii badan wanaagga jira haddii wanaag ay qirayaan ay leeyihin wanaag baa jira wanaagga ka sii badan in la qabto ayay raadinayaan war walba mucaaradku mucaarad axmed siiraaya waxaa laga hayay mar b b sida yunis calin uu wareysanayay ayaa waxaa la yidhi niyo mucaarad dhaliilun baad sheegaysaa wax wanaaga ma sheegtaa wuxuu ku jawaaba uu yidhi mucaaradku mar walba goldaloolada dowladda ayuu sheegay ayay sheegaan marka anoo tiisii ka duulaya waxa weeyaan waxqabad fiican uu sameeyey ilaahay khayr ha siiyo waa wanaag waa sharaf laakiin bal dhaliilaha jirana ha eego waa odaygii maanta somalilan waa midnimadii waa geedkii la doonayay in la wada harsado haddaba qaybo badan darafyadii daad baa qaadaye intaanu daadku gudaha inoo soo gelin bal daadka sidii loo moosi lahaa la raadi waaya dhaliilahaas mid iyo laba ma nooga taaban karaysaa haddaynu ka soo qaadanno dhaliilaha la sheegayo waad aragteen dadkeennii waxba isku qari mayno waxaa jirta qabyaaladiyo si laba qaraxday qabyaaladaasi dadka qaarba dhinaca bay u turjintaan waxa weeyaan haddii daafaha aad eegto dad bay ku soo riixayaan daafihii in anugu kama hadlaayo muxuu ahaayey qabyaalada jirtaa siday u kacday maxaa la dhaliilayaa maxaase aan la dhaliilahayn waxaynu u baahannahay dhaliisheenna ugu weyni waa qabyaaladda sidii loo dabar jari lahaa midnimada somalilan looga shaqayn lahaa fuuyijarka soo socdana loogu sii dhabar adaygi lahaa ayaa importantka uu yahay wixii kale dhaliila la sheegaya oo wax yaroo soke ee waxaa dhibka weyne uu ka imanaya baaba dulmiga jira ee ay sheegayaan dadka qaar intooda badani waa wax jira waa wax in laga qabtaa haddaynu soo galno iminka airportka markaad eegto company baa la siiyey anigu qofna ku duri maayo company baa la siiyey okay companyga haddii dhaliila laga sheegay oo la yidhi waxba may qaban maaha dowladdu inay dufaacdo waa inay combanygii ay yidhaahdaan aynu la xisaabtanno wixii ay combanigu iyo shilinkii halka ay mareen ay ka wada kulligood mucaarid iyo muxaafidba ay raadiyaan waa qurux waa wanaag inoo soo kordhay aad buu wanaagsan in madaaradeenna wax laga qabto waana ku faraxsanahay laakiin haddii wax dhaliila la sheego maaha in la dufaaco ee waa in laysla wada eegaa haybe haddaan adiga kugu soo celiyo kamarada saan sheegin xisbiga aad ka socotid kulmiye ee xaakimka ah wuxuu sheegay saaxiibkeen in ay dhibaatooyinka dalka jira ay ugu weyn tahay qabyaaladda waxaa kaloo taabtay airportka maamulkiisii ama dadkii shirkadii contract qaatay dhisiisa inay khaladad badan samaysay markii mucaaradku ay ka hadleenna dowladdii ay difaacday marka adugu labada arrimood soo aragtay qabyaaladdu ma tahay mid baasan maamulku ma yahay mid qabyaalad saamaysay sidoo kale airportku ma yahay mid aan lacagtii la geliyey
aan ka muuqan ma tahay بسم الله الرحمن الرحيم runtii horta haddii aan ku kala horeeyo labada su'aalood ee ah mid ay qabyaalada tahay midna arrinka kale ee tusaale ahaan eerboodada haddaan ku horeeyo qabyaalada runtii waxaad moodaa waddanka markaad u fiirsato in ay dowladdani boqolkiiba boqol waxyaalihii kaambeenka waqtigii doorashooyinka ay ku kaambeen garaynaysa inay madaxweynahani uu wax ka wada qabtay badankoodii wax dhammaaday iyo wax qabyaahina ay jiraan waxyaalo badan oo ay dowladihii hore ku hiili waayeen sida doorashooyinka ciidamada ay ka mid yihiin waxyaalaha maaragtay dadka masaakiinta ahayd dugsiyada looga dhigay firiga waxyaalo badan oo aan lagu hore loogu dhaqaaqin inay ay qabteen arrintaas oo boqolkiiba boqol meel fiican maraysa waxaa iyaduna barbar socota marka dhinaca kale laga eego qabyaaladii oo sidii hore ka soo kacday halkeedii arrintaa waa mid annaga noo muuqata kasoo kacday marka maxaad ka wada meelay baabaadin soo way macnaha qabyaalad baa soo noqotay ay soo noqotay laakiin qabyaaladda soo noqotay xisbiyada mucaaradka ah markaan u soo baydho waxay ahayd qabyaaladda waxyaalaha meel haddaad aragto wax ka yar dhacaan waa la damiyaa laakiin waxaad moodaa inay batrool kusii shubayaan tusaale ahaan arrimaha burca ka jira ka dhacay hargeysa waqtiyadii doorashooyinka waxaan odhan lahaa arrintaas xusbiga mucaaradka ama xusbiyada mucaaradka waxaa fiican inay sheegaan dhaliilaha dowladda si dowladdu ugu qaadato toosin in ay wixii meeshii laga dhalilay ay hoos u eegaan waa waajib taasi laakiin xusbiga mucaaradku yahay marka uu ku kaco waxyaalo keeni kara in nabadgelyada khalqal ku yimaado marka la leeyahay waddanka hala badbaadiyo dee annaga ma muuqato xaalad waddanka laga badbaadiyo oo dhibaato weyn oo inagu timi dabayl dagaal wax inagu yimi ma jiraan marka kelmadaha marka la tilmaamadsado iyo qaar kale oo ah shirweyne qaran hala qabto sida tusaale ahaan sida madashii imika dee arrimihii iminka labadii bilood ee ugu dambeysay ama saddexdii bilood soconayay shirweyne qaran oo aynu soo dhaafnay muddo dhowr iyo 10 sano ka hor aynu 20 sano ka hor shirweyne qaran aynu soo dhaafnay marka waxaan leeyahay qabyaaladda dad dana gaara leh ayaa samaynaya oo waqti gelinaya inay kiciyaan laakiin ma jiraan beelo cola oo isku duulan maanta oo haddii aan kaa dhex galo mucaaradku waxay leeyihiin qabyaaladdu waxay saamaysay maamulka oo ayaa ka jirta hadday tahay shaqada hadday tahay kontragada la bixinayo hadday si kastaba noqotay qabyaalada lagu sheega waa taas marka adiga muxuu muuqatay in qabyaalada ay ka jirto maamulka ku dhex jirto ku milantay mukoota adiga runtii qabyaalad maamulka dhexdiisa aan ka arko oo muuqata ma jirto laakiin waxa weeyaan dee waxa indhaha qofka ayaa taabta matalan tusaale ahaan airportka oo kale haddaan u baydho dee kambani baa kontaraak ku qaatay kambaniyo badan baa u tartamay mid baa ku guulaystay waxbuu ka qabtay wuu sameeyey sidii loogu talagalay buu sameeyey laakiin waxa weeyaan wanaagga la qabto marka indhaha dadku isku si wada u arkayaan anigu dad hargeysa jooga oo ka yimi ay guuri lamaba taaban iyadoo constructionku ku soconayo mid kale oo ka yimina wuxuu leeyahay waa laga shaqaynaya marka waxaa fiican horta indhuhu bini aadanka sidaa khudbaddii madaxweynaha ku jirtay wuxuu yidhi waxaanu qabanay waxaa iyo waxaa iyo waxaa waxaanu kaloo qabanay waxaa iyo waxaa iyo waxaa haddana dhibaatada jirta buu yidhi indhaha caafimaadka qobo qura arkaya marka waxqabadka indhuhu ay si wada arkaan xumaantana isku soo arkaan ayay imanaysaa risol dhexe oo dadkii ay wada arkaan taa waxaan leeyahay airportka waxbaa laga qabtay diyaaradii loogu talagalna way fadhiistaan iminkana way fadhiistaan horena way u fadhiisteen laakiin ma jiraan wax dhibaato ah oo ka jira oo maaragtay musuqmaasuq meesha ka dhacay gabayaan ku dhashiyo gabayaan sida adigu maxaad ka joogtaa horta walaalkay wuxuu qiray inay qabyaaladii soo laba kacdo waa ta ugu horeysa inagu wanaaggeenu wuxuu ku jiraamaan mar hore idhi wada jirkeena inagoo og shalay markaynu soo gallay waddanka waxaynu ku soo wada gallay ay ahayd wada jirkeena ayaynu wax walba ku gaadhnay wax walba ku jeednay waad ogtay dagaaladii burca iyo berberiya hargeysa ka dhacay wada jir ayaa wax walba lagu maray okay wada jirkii wuxuu keenay in daafihiina
aynu la walaalowno aynu nana war wixii dhacay wixii daantaana daad ha qaado wixii daantaana daad ha qaado aynu iskugu nimaadno mid keliya oo ah Somaliland anuu taan ka hadlaya oo walaalkay uu leeyahay kulmiye xusbiyada mucaaradka anuu xusbi mucaarada ka mid ahay wadani waa ka mid ahay laakiin wadani muxuu yahay muxuu socdaa wadani wada jirka ummadda ayuu mar walba ka hadlaa mana dhaliilno ma niraahno hebel iyo hebel baa waxaa sameeyay maaha laakiin hadday dhaliil iyo qalooc jiro qalooc waa jiri karaa dad baniaamiya baynu nahay mid baa si kale oo looguba igmad wax kala samaynaya waa in la joosiyaa way wanaagsan tahay anuu dhaliil mar walba in la sheegaa way fiican tahay oo cid lagu shaambadayn hebel iyo heblaayo marka waxaad moodaa masabkii mucaaradnimada ee beriga hore kulmiye ku dhawaaqi jireen inuu wadani hadda ka leexday uu leeyahay warbal dhaliishuun aynu isdul taagnayaan cidna loo shaambadayn waa taa ujeedadiisa ugu horeysa haddii aan dib ugu soo laabto mid waxa ay tahay walaalkay maaha yaa la siiyey baalki war waxaynu dhisaynaa waa wax kulligeen inuu manafacadna gelina oo ah inaynu wada eegno il kaliya ku wada eegno isha caafimaadka qabay walaalkay ka hadlaya waa ishii ama iyagoo muxaafida ama iyagoo mucaaridaba ay ku eegi lahaayeen wanaagga jira haddii wax qaldan yihiinna ay ku wada arki lahaayeen marka walaalkay quruxda foolxumada maanta socota wuxuu haystaa qurux waa ayaan daro war waxaynu ka duulaynaa yaanaynu eeganin dawladdan waxbay qabatay haa wax wanaagsan bay qabatay laakiin dhaliilaha jira ayaa ka ayaan daran oo ah qabyaaladina uma fiicna dalka iyo dalka waxay baabiinaysaa wada jirka haddaynu dib ugu laabano dawladdii siyaad bara waxa baabiiyey waxa ahayd qabyaalad wax kale may ahayn waxay ka baydhay masabkii ummadda Soomaaliyeed ay u igmadeen dawladdii jirtay waxaynu ka cararnay dhibkii dhacay waxaynu guurnay in wada jir iyo qabyaalad la dagaalamo marka aynu ku soconno masabkeennii ahaa war qabyaalad hala tirtiro okay waan gartay dawladda hajeer mucaaradku waxay simaan dawladda siyaad bara iyo dawladda siilaanyo dawladda siyaad bara nogeyn siday ahayd iyo xaaladaheedii iyo duruufaheedii tan siilaanyana dabcan anay wax badan kula gedisan yihiin maxaa keenay inay heerka ay gaadhaan adigaan kugu soo celinaya okay marka lagu leeyahay dawladdii siyaad bare maxaa baabiyey waa inaad dareentaa walaalkay wuxuu ka dhawaatay uu ka qiray in qabyaaladii ay soo noolaatay oo soo laba kacraysay waddankii Soomaaliya la isku oran jiray waxa baabiyey qabyaalad bahay qabyaaladaasi mar walba waa inaynu maskaxdeena ku haynaa hadday qabyaalad timaado in midnimo ay baaba'ayso sidii Soomaaliya tan lagula dhinac dhagayaa maaha dawladdii oo ogeyn siyaad bara wixii foosho xumaayay samaysay maxaa baabiye weeye waayaan ka dhex galo qabyaaladda haddaan ka tagno wax kale oo dhaliila مثلا waxqabadka dawladda ma yahay mid ay kaga wacan tahay siday muxaafidku ku doodaan maamuladii hore oo iyagu leeyihiin waxyaabo waaweyn oo muuqda oo barnaamijkayga iyo buuggayga ku jiray baan qabanay waxyaabo badan bay qabteen meena ku amaanayna in lagu taageero waa su'aal aad u wanaagsan horka waxa hore waxa loo yiri wax ma tare ma jiro wax yar tare ayaa jira dawladda inay wax qabato waa tii loo igmaday ma qabatay laakiin waxa ay qabatay heerkii loo filayay ma gaarsiisay way su'aashu heerkii ummaddu ay ka filaysay ma la gaarsiiyay ayay tahay su'aashu maya anu sidaan u arko waxaan u arkaa dawlad iyadu sidaa isku dhex socoto oo wasiirkii warfaafinta wuxuu ka shaqadii ka joojiyay in maareeyay TV-ga waxaad moodaa madaxtooyada lafteedii inay laba garab ay fadhiyaan garab awoodoodu untouchable tahay iyo garab aan awoodoodu muuqan haddaad eegto cukusul
oo ka joojiyey maareeyihii TV-ga qaranka in lagu ixtiraamo nin wasiira oo la yidhaha okay wuu eriyey soo maha yaa shaqada lagu celin soo maad fahmi waay waa wasiirkuna milkaha uu leeyahay weyn ognahay haddaba isdhexyaacan iyo balqbalqadan dowladda ka muuqataa ma aha wixii loo igmaday waddo yaroo la dhalaaliyey iyo iskuul yaroo arday laga daayay cashuuraha wax weyn maaha waay wad mahadsantahay kusoo noqon doonaa horta cumar baan la hadlayaan siinaya sugaan hadlin warahaas cumar wad maqlisay labadan mudane halka fadhiya eebiyi gabiyayo oo mid walba dhinac jiro adigu dalkii nin aqoon-yahanna waa tahay khibradeeda la socda markaad ka dab qaadatay hadalkoodaas maxaad ku biirinaysaa adigu waxaan ku biirin lahaa dee horta kolleyba mucaarad waxaa loo yahay in dhaliilaha la sheego oo dowladdan madaxweyne axmed maxamed siilaanya wou madax ka yahay markay mucaaradka ahaayeen dhaliilihii dowladdii madaxweyne daahir riyaale uu ka ahaa ayay sheegi jireen oo ay tilmaami jireen taas waa wax iska natural oo caadi ah oo maaragtay laga filayo inay tilmaamaan waana check and balance waana hadday jirto oo ay dadweynuhu ku raacsan yihiin hadhow dowladdani marka ay xukuumaddu isa soo bandhigtay ee yimaadaan doorashooyin ayuunbay ku waayayaan voodkoodii inagu dal dimuqraadiya baynu nahay waktiga la sugaano waa waktiga voodkuun dibadda qoladaasi haddii wax qabadkii laga rabay samayn waayaan voodkun bay kaga baxayaan meesha si kale kaga baxayaana ma jirto waxaan ku dari lahaa sida wax loo raadinayay markaan ayaga matalan arrinta ictiraafka oo kale haddaan galo anugu ictiraafkaan hadiyo gooraale jecelahay inaan tilmaan ka tilmaano adigoo iga raaliya ictiraafka waynu gelayna waana ku weydiin doonaa adigoo dabcan dhexdhexaada sidaad adigu sheegtay weliba qaabka mucaaradku xaq wuxuu leeyahay inay dhaliilaha sheegaan wixii jira sheegaan laakiin qaabka ay u dhaqmayaan ya banaanka wax walba laga sheegayo sometimes dadka qaar leeyihiin waxyaabihii dowladdu ku shaqa lahayd bay ka hadlayaan oo gelayaan aduu sad u aragtaa habkay u dhaqmayaan anigu waxaan u arkaa inagu waxaan layna siiyey xorriyat alqowl oo waxaynu xor u nahay freedom of speechkii ma inuu qofku siduu doono uu haduu u dhaqmo laakiin taasi waa qalad in qofka la siiyo full maaragtay power waayo haddii kale dee qof dhan baad arkaysaa oo xadkii dhaafinaya sheekada oo sidii aan loo baahnayn ama cay ay gaadhaysa arrimaha qaarkood waxyaabo la taaban karo ayaa loo baahan yahay oo matalan dadka aan aad iyo aad u taageero marka ay wax mucaaradayaan waxaa ka mid a maxamed xaashi cilmi injineer maxamed xaashi cilmi oo wasiirkii maaliyadda ahaan jiray hore wuxuu la soo baxaa waxyaabo qoraala oo uu leeyahay qiimuhu waa caynkaa qiimahaasay ahayd waxaasay ahayd wax qoraala ayuu la yimaadaa marka dee lama doonayo inaad iska taataabatid unba dhamo aan loo baahnayn inaad qaawisana qofkii kaleed ka hadlaysay oo aad intood dharkoo dhan ka saarto aad tiraado waa kaasee arkaay taana looma baahno waayo cadow badanna waynu leenahay cadowgeennana inaynu u jabno oo layna arkay inagii dad is haysto oo weliba si bilaa macnaha isu haysta taasina ma habboona laakiin si farsamaysan oo cilmiyeysan oo wanaagsan oo check and balance leh in la isxisaabiyaa ma xuma isxisaabintaasa ayaan meesha wax ku jira ah marka mucaaradka waa laga qayb geliyo markii hore way tageen markii dambena waa lays khilaafay oo dowladdu kumay tarin iyadoo ku dhaleysay qaar ka mid a sida matalan adug gudoomiyaha ciidoo kale inuu maaragtay khaladaad sameeyey saa daraaddeedna uga reebeen laakiin hadda waxay ku doodayaan bas sharciyan anu marka hore ixtiraam ahaan baan ugu daraynay laakiin marka sharciyan la eego oo gudoomiyaha xisbiga waddanina uu ku taageeray dalka waxa matelayo dibadda waa dowladda oo loo dhiibtay inay la hadasho Soomaaliya kala hadashii loo kala baxayay laakiin xisbiga mucaaradka ah ee waddani ucid wuxuu leeyahay maya xaq baan u leenahay masiirkii dalka laga hadlaya weeran ogaana anagu secretary bismillaahi raxmaani raxiim aniga horta kolleyba shirka Istanbul horta guul baynu ka soo qaadanay markaad u eegto levelka uu shirku ka hadlayay guul baynu ka soo qaadanay waayo waxaa la saxeexay inuu waddankeennii Somaliland uu ka dhacay
atrocities oo ah wax ka sii adag genocide kana xataa haddii dalna ay arrintaas oo kale gaadho oo dalkii waxaan geystayna uu saxeexo innaga waxay noo furaysaa albaab cusub oo ah inaad ku doodi karto dadkii waxaan kugu sameeyey inaydaan dib isugu noqon gacmo kala taag marka horta channelka uu furay wasiirka arrimaha dibaddu waa channel aad u culus oo wanaagsan oo innagana inoo hiiliyey libtana ina siin kara laakiin markayga horeba anugu umar ahaan ma aqoonsani soomaaliya horfadhiisigiisa inaynu ictiraaf ku helino maxaa yeelay soomaaliya marnaba ma ogola inaynu ka baxno dastuurkooda waxa ku yaala waddankii Somali Republic la oran jiray ama Somali Democratic Republic mar loo bixiyay ama Soomaaliya loo bixiyay oo inaguna ay noogu tilmaami jireen gobolada waqooyi hadaynu Soomaaliya xataa nahay magaceena ma sheegaan inaynu qayb iyaga ka mid nahay ayaa constitution kooda ku taal constitution koodu sidan kan Ethiopia oo kale ma aha ka Ethiopia waxa ku yaala hadday kooxi doonaysa inay go'do afti baa laga qaadaya waana go'ay kartaa si Ethiopia ku go'day imika gobolka Soomaalidu Eritrea kaga go'day Ethiopia gobolka Soomaalidu hadday intay ishabeeyaan ay doonayaan inay gobol gooniya noqdaan xaq bay u leeyihiin dastuurka Ethiopia ku taal laakiin dastuurka Soomaaliya kuma taalo inay cidi ka go'i karto marka dad aan kuuba ogolayn inaad marka horeba xaq u leedahay waxan wixii adigu aad goosatay dad aan kuuba ogolayn waxa isku hor fadhiisatan waa gacmo jiid aan ku jiito laakiin dawladaha adduunka ee wada hadla ee kala go'a sida East Timor iyo Indonesia kaleemka ama muxuu ahaa Kosovo kale dawlado badan baa jira kala go'ay dastuurkooda Suudaan oo kale kuma qoreen waligoodna kama go'an Suudaan haddana way wada hadleen dadku markay wax ka dhaxayaan bay wada hadlaan haddana Soomaaliya iyo Somaliland la wada hadal marka ayaa la hadlaya kale warun weeye South Sudan iyo Sudan way kala bixin iyadoo dastuurka Sudan ku qornayn kala baxo laakiin haddana South Sudan waxay heshay dad taageera saaxiibay yeelatay dibadda ku yeelatay ama Israa'iil ha ahaadaan ama Mareykan ha ahaadaan ama dawladaha Yurub ha ahaadaan dad taageeraya oo caawinaya ayay heleen waxa la yiri ama buur ahaw ama buur ku tiirsano inagu waxaan caawinaya ma haysano dal jirana waynu hayno inagoo dal Ingiriisku xukumayay ahayn oo boundarieskeena iyo xuduudaheena lahayn ay wali qeexan yihiin oo xuduudahaynu inagu ku doodnaayeen kuwii isticmaalku ka kacay isticmaalku inagu ogaa aynu nahay ayaynaan haddana goolkii soo dhalin karaynin goolkan sida lagu soo dhalin karaa maaha sida nimankan inaynu hor fadhiisano ah nimankan indhahay ka xidheen arrin kala go' la yiraahdo oo kooda ugu yar ilaa kooda ugu weyn marnaba ma ogola in horumar ahayn markii ugu horeysay in two different agencies oo kale ama laba wax oo kale laba maamul oo kale Soomaaliya Somaliland kula macaamilaan heshiisyada la saxeexayo qaabka loo saxeexayo sida loo qoray qoraalku dhammaan eegno waxa lagu qoray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladda Jamhuuriyadda Somaliland baa lagu qoray oo ogolaadeen inay reer Soomaaliya saxeexaan waxay wasmin lafteedna horumar ahayn waad moodaa wataan ku leeyahay guul weyn soo yaragaan hase ahaatee halkaas weli waxa ku jirta godololooyin badan waayo mar allaaliya marka ay ku noqdaan wufuudu markay ku noqdaan wufuudu wadankoodii bay sheegaan ama iyagu ama madaxdoodii ama madaxweynaha imika Soomaaliya oo kale Xasan Sheekh wuxuu yiri waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye sidii aan u soo celin lahayn Somaliland aan u keeni lahayn dabcan isagu tudoonaya iyo taasoo ajendahaas mar walba ka hadla madaxweynuhu sheegay intaan ka bixin magaalada la yiraahdo Hargeysa ka bixin caasimadda wuxuu dhiyana waxay doonayeen in soo celiyaan waxaan doonayaan ka tagno wiil taas waa iska wax caadi ah maadaama aad tahay dadkii Ingiriiska iskuul ku soo bilaabay intaan jaacad ka baxay Mareykan in badan joogay waxa jira laba kelmadood oo la isku qabtay oo mucaarad iyo muxaafid la isku qabto la yiri taas in isticmaalaan ma ahayn taa in isticmaalaan bay labada kelmadood midna genocide tahay midna tahay atrocities tahay bal maanta noo kala macnay labada kelmadood oo daawadayaasha oo qaar badan madmadow kaga jiro bal u macnay adigu atrocities iyo genocide waa laba kelmadood oo isku dhow laakiin kala level sareeya genocide marka la yiraahdo waa dad la tirtiray oo kale oo la xasuuqay genocide baa ka dhacay waa meel la baabi'iyay oo dhibaato weyn oo ay ka dhacday atrocities marka la yiraahdo waa meel loo dhameeyay oo de levelka aad ka hadlaysaa waxay tahay meel nuclear power lagu tuuray oo kale
meel aan wax allaaliya wax ka soo noqonaya loogu talagelin inay noqoto waa atrocities baa ka sarreysa oo kaba adag ba adu waxa la atrocities baa ka xoog badan genocide-ka ayaa ka yar atrocities oo genocide oo kaliya waa wixii Rwanda iyo ka dhacay laakiin atrocities way ka sii xoog weyn waa meel lagu baabayo lagu hooyo lagu baayo ku noqon lahayn waana tay nagu dhacday inaga xaqiiqatan atrocities bay waa genocide ayaa kamid ah waxyaabo badan oo ethnic cleansing intaas oo dhan marka la isku daro la yiraahdo atrocities ethnic cleansing genocide maxaa la yiraahdaa dictatornimadaas iyo powerka uu xumaynayo wax markaad waxaas oo dhan isku darto dhibaatada ay geysata atrocities ya intaasoo dad la laayay intaasoo dad la gubay intaasoo guryo la gubay intaasoo meelo la baabiyay waan gartay haybo adigu waxaad bal hadda noo sheegtaa sidoo kale wada hadalada Istanbul ka soconaya dawladdu ay gashay la gashay Soomaaliya la gashay ma u malinaysiin kuwa mira ka dhasheen ama qaar mustaqbal ay gaareen haddii aan taago arrimaha shirarka Soomaaliya ay la gal ay u dambeeyeen kan Istanbul haddii aan u soo baydo hawlaha shirarka Soomaaliya ay la wadno ee ka soconaya Istanbul waxaan u arkaa guul weyn inaynu gaadhnay tusaale ahaan qodobka lagu soo kordhiyay iminka ay Soomaaliya qiratay in ay ka dhacay genocide-kaasi Somaliland waqtigii 1988 iyo waqtiyadii dagaaladu soconayeen marka taa iyo kuwa kale oo badan waxaan filayaa inay tahay isbedel ku soo kordhay marka inaynu haddii ay sii socdaan guul ka gaadhno ayaan aaminsanahay ta kale waxaan aaminsanahay in halka Cumar ka dhawaajiyay Soomaaliya inaanay wada hadal naga dhaxayn anigu waxaan leeyahay in haddaad danta kaliya cidda inaga dhaxaysa waa Soomaaliya adduunyada waxa weeyaan markhaati iyo inayna kala eegaan iyo haddii ay arrintan socon weyno inay soo dhex galaan mooyaane laakiin ninkay waxay naga dhaxeeyaan waa Soomaali maantana inaynu hor fadhiisano oo aynu la garnaqsano oo la gartano waxa suurto geliyay dawladdan maanta jirta ee madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo taas oo noqotay in aanay ku dhiran jirin dawladii hore maadaama ay soconayso oo maanta la wada hadalayo waxaan aaminsanahay in kullayba ay guul laga gaarayo waqti dhow insha Allah haddii Ilaahay ka dhigo marka waa guul soo kordhay baan arkaa aan u wareegsagana Maxamed Gabiyaye bal adigu laftaad arrintaas si kula muuqato iyo inaad dawladdu ay horumar ka samaysay inay la fadhiisto inay sax tahay inay qalad tahay xisbiyada mucaaradka in laga reebay in kale si kula muuqato laftaada hortaniyo Soomaaliya iyo Somaliland inay wada hadlaan waa wax aad u wanaagsan oo aayahooda iyo mustaqbalkooda ay ka wada hadlaan waa walaaladeen Djibouti oo kale waana fiican tahay laakiin inta meesha taala waxay tahay wada hadalka la galayo ee Somaliland iyo Soomaaliya wada galayaan wadadii ku habboonayd ma mareen way wadada ku habboonayd oo dadka qaar baldhina u eegaan dagaal Somaliland jawaala baabiyo weyn oo dagaal waa dhacay ku dib uga tagi maayo hadalkii ay walaaladii dhameeyeen laakiin se wadada ay nimankan doonayna inaynu ku kala baxno ooda dhacmeed sida u kala sareeyaan ayaa loo kala guraabalay maanta warka jira maanta ku soo dhamaamayo Somaliland in la yiraahdo nabadgelyo ku soo dhamaamayo laakiin dadkan kaaga qayb galaya wada hadalka inay iyaga marka horeba calaamad su'aal saarnaa aad bay wanaagsan tahay nimankan ma u qalmaan oo ma yihiin niman kartidoodii leh awoodoodii leh hadalkoodii leh inay ka midha keenaan waxa loo igmaday ummadda waxna waa masayrka ummadda masayrka ummaduna maaha inay dawladdu shafka ay soo garaacato tiraahdo anigoo keliya ayaa go'aanka gaaraya maaha waad og tahay awoodaha waddankeena ka jira baarlama baa ka jira golo guurti baa ka jira waxaa ka jira dawladdii oo ah golaha fulinta waxaa qurux badan haddaba aynu ku soo caanamaalnay wada jir iyo inaynu nidhaahno warxag sidaynu qaladkan baa taaganay inagoo isku dhan warxag sidaynu uga badbaadnaa qaladkan soo socda iyo waxaan jira waxaa laga yaabaa far keliya fool ma dhaqdo dawladdu keligeed waxba
يا ما سمين كرايسو وايو بري كمالين هدي سوفي الجروبان جروب كي كلا رهيبي يا وحي أوتحي دي مرخاتي مدونتو هذا بس أنا كان أحكي الدولة الشعب كأردن باتورتي مشورتي ولا تورتي سياسة الدبدة ويكون متشاه يجودها بين هكتو ما كسر دولة دي شوكتها حسبي المعارض كاي وهكذا ترسين برلمانك برلمانك لبعض نقول له سكولا وكيلا ده يجورتي ده وأنا هلك وحلا قصها شيء كستيو كستول صوص مايل صومريا وكمان كوها بونين معارض كوني قنوات كشرعي اوكي حدان سؤال هذا تبغى صنع واد وغدو بحرين ميديا وجود بيوكالسيس وشاي مركي تجين اسطنبول قولها قلت له بربيك كايستين قولها بارلمان كان بربيك كايستين انتوا كل مية هاي انت تكتيبا كل مية هاي وح معارض كجتري او بارلمان كا ما يهين هاوشي واحد مودا إن أي كل مية دولة ما تحقق كايسة إن أي يدوس كوكتة تامر كلا يجدو وحوي هشيس كستوي سوق كلام وحا أي تحي إن يصهر لجان قولي بارمك واحد مودا إيو سيدي ما يرون على ويديني إيو إن يلسو تاجين وحوي ناكسن إن أي كا تسان ومدنو بداميان بارمك للمران وحكستا ومسيرك ومدة أي جوانك أي كسو قاريان بارمك نوايو سبورت قرية تامر كاينو سوى الدوب وهاي تحي وريني من يهو تدبضنا عقوي هالنابات عن كترين حسبية يو دولة الطور والله جيابو إن وحي الشري طول وحي دعينا أما تاريخ بالو كوضة وواحد أكتر وحي دعي شري سيدي لو أغني 1988 وحي دعي دد أغني 1960 وحي دولميكي سو بلا مي أيان شوغة والوحا وناكسن تاريخ تين ندبو دهان تد كمان تشوغة في فرقوترسك عنها إن عينو بركو كديغنو وحي أغايين سيتاسي نو حكتو في يوتركين عمر بقصنا قرية عمرو مدون شرعية نحكي تقاني أرين كان لسكو خلاف سنية هي يا مثل يا دولة كقيب كلية ولا هذا لا لما عرفتوا ليه وأنا كقيب كلا دولة أنا لصورتي ساش معارض كتير هبان ميلا أنا جا حسابيا بتشرتيها فلسطين برلمان وهالشيء كان سوق هذا إنه هلك أما كديدين أما كوكل هذا أوصل أنا waxaan u arkaa arrintan oo kale oo ahayd arrinta مثلا in Soomaaliya la shiraya arrimaheeda hore waa loo kaxaysan jiray mucaaradka waxay Soomaalidu tiraahdaa caado la gooyo cadaalad ay leedahay wixii hore aad u sameyn jirtay ee aad ku dhaqmaysay ma sharciyan ma ka hadlayna sharci xaq mawliyiin Soomaaliya sharciyan maanta waxaynu nahay dawlad aan la ictiraafsanayn oo aan wali isku taagin cagaheeda si wanaagsan in dalkii oo dhan anigu kulli constitution-ka kama soo akhrin arrintaas inay wax kaga jirto in dalkii oo dhan isagoo isku duuban uu hor fadhiisto arrimaha Soomaaliya iyo cidii kale inuu la hadlaynaba oo aanay ahaanin uu dawladdu kaligeeda ordaysa oo socota aniga arrintaas gabyay waa ku raacsanahay waxaan u haystaa in dawladdu ay su'aal kale weydiinaya way gaftay marka la eego heshiisyo badan oo dawlado badan oo caalamka ay la galeen ama dawlado kale ama ururo kale oo ama raba inay goostaan ama laba dawladood oo dhul isku hay noqoto hadii jeer waxa loo saaray guddi khubara oo ku takhasusay qaanuunka caalamka international public law kale iyo qaar taariikhda ku takhasusay oo maartay labada dhinac ka socda siday u soo dhirindhiriyaan hadhow markay meel dhow keenana dawladda kale loo soo gudbiyo markaas wasiiradu kulmaan iminka ma aragtay inay khalad tahay in laga bilaabo wasiirro wada hadlaan oo aanay shaqadan tahayba shaqo wasiirro oo ay tahay inay khubara la kulanteen ahayd waa hadal wanaagsan anigu waxaan u haystaa qoladani halka ay marayaan imika inay stage-ka ku sii socdaan oo aanay weli gaarin laakiin meesha loo sii socdaa ay halkaa tahay in khubaro hadhow loo saaro la yidhaahdo war dadkan maxaynu ka yeelnaa ma kala saaraa mise waan isku haynaa
khubaro u baxdo oo dabeedna arrintii lasoo dheeheeyo oo xag dhinac walba laga eego qaynuunkii historygii marka arrintan atrocitieskani waxbay ka taraysaa sheekadaas oo kale oo innagay inoo tahay wax innagayna aan